السلام عليكم أصحابتي اللي أنتي بوا مسكينتي إله ودي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan inoo socotaan waa miskiin official magaciidu waa Ayuub. asxaabtayda intii maanta waxa idin wadaa waa barnaamij aad iyo aad xiiso gelin doona oo la yiraahdo sida hadda meesha intee muuqato waa mar aan ahaa 115 kilo hadii abaf 15 kilo iska soo qabo laakiin 20 ma daalay meeshaan waa ujeedaan sawirkan kale waa 100 waa 74 imin waa qaldamay waa 74 kilo. okay labadaas faqri ayaa u dhaxeeyo labada faqri u dhaxeeyo qaabka aan ku gaaray iyo sida aan hilibkaas faraha badan aan iska soo dejiyay ayaa maanta inaan la wadaagaan raba waa dad badan xanuunkaas shalay ahaayay dad badan oo hayay jiro ilaa ay haddana raba wadada ugu bixi lahaayeen insha Allah waa idin soo saari doonaa halkan video kaligiisna kuma soo dhameystiri doono oo waxa idin keeni doonaa dad ku guuleystay ayagana inay jirkooda qurux ka dhigaan noloshaadina quruxsaday waajibku u tahay mar alaaliyo mar kastaba ayku saad ogtihiinba waa wax aad iyo aad u farxan waa wax aad iyo aad da'daada u horumarinayo marka waxaan teediya walaalahayda Soomaaliyeed inaad iska ilaalisaan inta iska ilaalin kartaanba aysaad ogtihiinba ayku waa cudurkana Allah inuu ka saaro maahanay adigu dadaal ay u baahan tahay inaad dadaasho Ilaahina uu kula darbaliyaa cudur marka cayiran tahay cudur fara badan ayaa halis u tahay cholesterol inuu wadnaha istaago socodka faraha badan oo ku dhibo waxyaalo fara badan marka meesha waxaan inta la socodsiinayaa sida aan sidaan ku noqday sida anigoo ah waxa aan sidaan anagoo ah sidaan aan ku noqdo waxay tahay wax kala ma ah walaalahay qaliya waa kaliya barnaamijyo fara badan aan sameeyay only kaliya waxa idin sheegaya inta aan sameeyay intastoo aan ku soo koobi karin hal video kaliya in aan waxaan sameeyay iyo waxyaalo fara badan waxaan keeni doonaa macallimiin badan oo darabkii soo fariisan doona dualidmo oo idin dhihi doono qaabka aan gym idin sheegi doono qaab dhismeedka noloshiina oo cuntada aan cuni lahaydeen iyo waxay idin ka caawin doonaan sida fudud oo aad isku caateen dualidmo hadda hadii aad idin sii wada arinkayga aniga waxaan ahaa 115 kilo wallahi been idin sheegay maalmaha kamid ah oo wax iibsanayo ayaan ka jeclaaday وانا دريم كتان جواب كذي على طول على صار هلا لكن واحد أسئلة ده نبغى ما دعيته جودو حيلا باي ورن بحي وجواب تحتري هذا رافع عنها قلب تبغينا يا كذا مرتا واحد أنت لا لنا يقولش الصوماليين يجيبين الصوماليين قلب جبت يعني سودارين ويمكن يسودار ولا لا مرتا واحد اللي هاي عيل هو واحد استقلالية أنا كذا هذا واحد أسبوعتي واحد لما هرتو فاستي waxaad yareynaysaa cuntada inta waqti aad cuni jirtay waa iska deynaysaa waxaan isku daydaa haddii aad 2 waqti ama 3 waqti aad cuni jirtay inaad 1 waqti aad cunto cuntada halkaas waqti oo ah inaad dhadhin muhiimadda inaad dhadhin waa haddii aad dharayto ayilku waqti imaado horta dhaqaatiirta badankood waxay yiraahdaan cunto qofku ku dhardo cuntada khamiir ay noqoto khamiir markay noqoto markaas ay faad isku bedeshaa marka waxaan leeyahay horta dharayta iska ilaaliya aniga martaan guulaysto waxaad waxa macaankana waa la yacraa waxa saliid lehna waa la yacraa aniga markaa intaas bata carray waa guulaystay inaan miisaankeyga 1 month gudaheeda aan soo hoos u soo dhigo wax aad iyo aad fara badan sida ujeedaanba waxa hoos u dhigay aniga 30 iyo hayay 40 iyo waxa la dhihi karaa 40 iyo 1 kilogram ayaa waxaan ku dhigay muddo yar gudahooda waxaan iska ilaaliyay oo kaliya horta waxa waa in management ku sameeyso cuntadaada inaad management ku sameeyso waqtigaada inaad mar walba aad biyaha qabow aad iska ilaaliso horta wax qabow iyo wax macaan inaad iska ilaaliso talabaad inaad iska ilaaliso inaad dharagto cuntada adoo u baahan inaad wax yar taabato aad ka kacda loo baahan yahay walaal haatana barnaamijka aad u sii dheeraanaya barnaamijka ayaan ku sii dhameystiri doonaa walaalayaal waxaan leeyahay waa anigii oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh please sahil maamin like share comment ina ku qabato barnaamijka xigana insha Allah binna karim macalinkaasna waa keenaya oo idin soo fariisinaya casharkina waa sii dhameystiriyaa dooleedna bartaasna waa soo asxaabta